السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ودنبالكيني أفري الباطنات دنبالذينا نفتادنا حقله دنبالكنا waxaynu u bixinay sidii dhanbaalkii hore tarminta ducada kii hore wuxuu ahaa tarminta dikriga laakiin kan waa tarminta ducada in badan markaan ducaysanayno xilliyaadkan khayrka badan leh ee barakada badan leh ee weynida badan leh ee fadliga ilaahay ee gallada ilaahay inooga ahaaday waxaynu saluugnaa ama isweydiinaa ducadaada ma la aqbalayaa taas kama dhigna in aynu shaki gelinayno ballanqaadka ilaahay udcuunii astajib lakum laakiin waxaynu ognahay oo yaqiinsannahay oo horteena iyo labadeena indhood dhexdooda inoo taagan waxaynu dembiyo falnay waxaynu gaabis ku jirno waxaynu hawlow dhex dabaalanayno waxaynaan hubinba in waxa weeyaan allahuma salli calaa sayidina muxamede dunuubteennii hore aynu samaynay istikfaar burburiso baabiiso meesha ka saarta ama badhaxda ugu yaraan sababtaasna ay ku noqdaan albaaba adag oo xidha ama hor istaaga in la ajiibo ducooyinkeeni waxaa jirta ilaahay subxaana watacaala mahad iyo weyni ha u sugnaatee rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam wuxuu inoo sheegay in qofka qof walaalkiya oo muslina ugu duceeya duco una ogeyn dhahri lghayb duca iyagoo kala maqan u duceeya ilaahu hebel saa u yeel ilaahu dembigiisa dhaaf ilaahu ceebihiisa astur ilaahu waxaa ku arsaaq waxaa kale ku arsaaq qusaa dheh ilaalkaa ka caaf ilaalkaa kaga filaw ilaalkaa ka cid in siduu rasuulku calayhi afdal salaati wa atamu tasliim inoo sheegay malaa'igtu ay yidhaahaan adigana sidoo kale walaka bimithl sida uu warinayo muslim ku sugan waxaa lainoo sheegay oo rasuulku calayhi afdal salaati inoo sheegay wasalaam dacwat almar'i almuslimi liakhiihi bidahri alghayb mustajaaba in ducada qofka walaalkaaya isagoona ku ogeyn aad u ducayso ay mustajaabad tahay oo madaxaaga uu malag joogo markasta uu duco u ducayso qof muslina ku odhanaya wuxuu wakiilba ka yahay malagaasi inuu miinku yidhaaho oo ducadaada miin allaha aqbalo walaka bimithl adigana sidoo kale allah ku sii quraanka meelo badan waxaynu ku akhrinaa walladina jaa'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladina sabaquna bil iimaan waxaynu meelo kale ku akhrinaa wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat nabi ibraahim markuu inoo ducaynayay rabbana ighfir lii wa liwaalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumu al hisaab bulaha kolka ducada waxyaabaha tarmiya ee aqbalkooda uu rasuulku calayhi afdal salaatu wa atamu tasliim inoo sheegay inay mustajaabad tahay arrinkaas waa arrin go'an waa la cajiibayaa waxaa ka mid ah inaad walaalkaaga muslimka u ducaysid imisaynu dad garanayna ehelkeenna leh oo asxaabteenna leh oo dadkaynu la shaqayna leh ummadda ilaahay maalin aynu meel kula kulannay leh kuwa aynu si hoose u ognahay baahiyahooda hadday kuwa dhaqaalo tahay hadday kuwa nafsiyadeed tahay hadday kuwa ubad tahay hadday kuwa caafimaad tahay hadday kuwa cilmi aqoon tahay hadday kuwa guur tahay ayankan wax kastoo biniaadamku uu tabi karayo aynu hoos u ognahay fa yani waxaad samaysaa ramadaankan si ducadaada loo cajiibo weliba habeenna khayr badan baynu ku jirnaayo barako badane liis intaad warqad yar soo qaadato ama noodka telefoonkaaga inta qof emaankaaga kusoo degdegaysa marka ugu horeysa aad fikirto ee ehel leh asxaab leh ee dadku dhowle ee jaarkaaga leh ee dadka kula shaqeeya leh ee hebel bil ism magacooda intaad qortid qof walba waxaad ugu ducaysaa waxaad isleedahay waxaasuu ugu baahi badan yahay marka laga imaado inaad si guud ugu ducayso ilaahu hebel iyo hebel ubad bay raadinayaan ilaahu ubad khayr qaba oo maaniyo maskax iyo jirba caafimaad qaba ilaahu sii oo ku arsaaq innaka anta alwahaab ilaahu hebel arsaaq waasica sii ilaahu hebel safarkaasu doonayaaye oo fududay ilaahu hebel waalidkiisaa dhintay ka sabarsii oo qalbigiisa iyo ruuxdiisa kab ilaahu heblaayo ninkeedaa dhintay ka sabarsii oo ciwad khayr qaba ilaahay sii yani waad og tahay oo dadka waad garanaysaa haddaad fadhiisato caawa intaad noot yar samaysatee bal waxaad yeeshaa inaad dhahri lghaybka ugu dacaysa dadkaas waxaad kaloo samayn kartaa waxyaabaha adigu shakhsiyan aad tabaysid oo doonaysid halkaad adigu ku ducaysan lahayd dadka kale ugu ducay waxaad taa ka dhalanaysaa inay malaa'igtu tiraaho adigana sidoo kale
ducadeenna iyo ducada malaa'igta in la ajiibo teebaa aad isleedahay way chance badan tahay ta malaa'igta لأنه iyagu mana dambaabaan habeen iyo maalin dikriga ilaahay ba ku jiraan laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun ilaahayna ma ku caasiyaan wuxuu amray wax kastoo amrana way sameeyaan fayagay ducadoodu mustajaabad tahay marka loo eego inaka bani aadamkeennan dalagta leh wax kastoo baahiya halkaad ilaahow saa ii yeeloolan jirtay bal hebel intaad u nisbayso waxaa tira ilaahow hebel saa iyo saa iyo saa iyo saa iyo saa iyo saa u yaal ilaahow hebel waxaa siiya ilaahow hebel waxaa siiya ilaahow hebel markaad ka soo dhammaato dadka nool waxaad tirahaa ilaahow u dembi dhaaf oo qabrigooda noori oo kor ugu qaad mansiladooda qof kastoo muslina oo ciidda hoosteeda ku jira oon haysan cidda ducaysa aan haysan cidda ducaysa ilaahow u dhaaf waxaa ka dhalanaysa taasi adiga xataa lacalla laa qadar allah hataad xataa beri dhimato adoo yaroon guursan inuu wax badalin ama ubadkaaga kaa hor dhintaan ama ayeenkaan in aad heli doontid adoo qabrigaaga hoostiisa ku jira cid kuu suu ducaysa iyagoon ku aqoon ilaahow u dembi dhaaf ilaahow u naxariiso ilaahow qabrigtooda u nuur ilaahow darajadooda kor u qaad cid kastoo muslimo uunan haysan cid u ducaysa ka daba ducaysa waxay saacidaysaa taasi waxay tarminaysaa ducooyinkeena ayay tarminaysaa waxay soo gelinaysaa triangle bay ka dhigaysaa inaga markii hore keligan ducaysanaynay laakiin inagiina waynu ducaysanayna ducadayna waa mustajaab malaa'ig baa inagu lamaano iyaguna inoo ducaynaysa qofkii walaalka ee muslimkaana waa loo aqbalaya salaam